suis certain qu'une fois de retour dans votre unité, les techniques opérationnelles, mais surtout les valeurs que vous avez apprises pendant ces cours, donneront d'excellents fruits. Les activités accomplies, jointes à l'expérience humaine que vous avez vécue en étroite collaboration avec les carabinieri, compléteront votre professionnalisme, comme il en revient aux forces de police les plus modernes. Tout cela vous permettra de répondre de manière efficace et avec une nouvelle élan aux problèmes de la sécurité de vos concitoyens. waxaan uba in markaad ku noqotaan saldhigyadiinii in farsamooyinka howlgalladu iyo habdhaqannada aad barateen ay miro fiican dhalin doonaan howlaha aad barateen waxay idiin tari doonaan in aad si tayo leh uga jawaabtaan baahida nabadgelyo ee shacabkiina haysata waxaan si gaara u salaamayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo ciidanka maanta tababarka halkan loogu xiraayo iyo dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo ciidanka ka tirsan dugsiga tababarka booliiska nagaad ee Jabuuti mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan xiritaanka tababarka labada heerka saraakiisha federaalka ah iyo heerka ciidanka guud ee ka kala socda dhammaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Galmudug ee ka koobanta Soomaaliya waxayna ku suurtagaleen gacanta walaaltinimo ee Jamhuuriyadda Jabuuti nala garab taagan tahay had iyo jeer tababarayaalka ciidanka karabinieriga ee dalka Talyaaniga oo uu maanta taliye xigeenkoodu halkan nagala soo qayb galay xafladda Cela a pu se réaliser grâce à nos frères djiboutiens. hadlaya magacayga iyo kan ciidanka booliiska Soomaaliyeed mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo had iyo jeer la garab taagan ummadda Soomaaliyeed gargaar noocyo kala duwan leh sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo xukuumadda Jabuuti ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliiska ee dalka Jabuuti saaxiibkay Korneel Cabdullaahi dhiirnaanta uu muujiyay Korneel Cabdullaahi iyo saraakiishiisa ayaa suurtageliyay in tababarkan maanta uu si qurux badan uu halkan noogu soo gabagabo waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka xuso mudnaanta ay leeyihiin shacabka reer Jabuuti oo noo hureen waxa ugu qaalisan oo ah inay noo soo direen dhalinyaradooda wiilal iyo gabdho leh si ay uga qayb qaataan sugidda iyo xasilinta amniga walaalahooda Soomaaliyeed Il est de mon devoir de rappeler que la population djiboutienne s'est sacrifiée pour nous venir en aide. waxaan rabaa inaan halkan aan uga ballan qaado anigoo ku hadlaya magaca dawladda Soomaaliyeed in Soomaaliya ay weligeed xasuusnaan doonto wanaagga loo qabtay dhiigana loo daadiyey inta ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacantay howlgalladaas ka socda dalka Soomaaliya Ilaahay ha caafiyo waan xasuusnaanaynaa haddii Ilaahay idmo mudane wasiirka arrimaha gudaha iga qad dhanka tababarka saraakiisha iyo ciidanka maanta tababarka halkan loogu xiraayo waxaan rabaa inaan u sheego in tababarku sidiisba uu qayb ka yahay nolosha qofka askariga waa tababar waxaan halkan aan rabaa inaan si gaara ugu xuso dadaalada joogtada ah oo uu waday madaxa tababarada midyaad 5 Korneel Kikole oo runtii har iyo habeen u soo taagnaa inuu nala soo xariiro oo nooga warbixiyo qaabka tababarku uu socdo waa u mahadcelinaynaa booliiska waa booliiska bulshada waxaa la rabaa inaad had iyo jeer maskaxda aad ku haysaan inaad u adeegaysaan ummadda oo aydan dharka u xiranin in ummadda la cadaadiyo waxaad tihiin u gargaariyaasha inta jilacsan ee ka mid ah bulshada gaar ahaan haweenka iyo caruurta oo aad ilaalisaan xuquuqul aadanaha shaqadina si fiican ugu gudan karno askarka du tababar lahayna murama dhali karo faa'iido ma keeni karo bulshadiisa askari tababaran waa wadani fiican waxaan filayaa inaad noqon doontiin kuwaas ilaahayna ha niga yaro kuwa iman doonaan inaad noqon doontiin calaamada ku daydan waxaan ku soo gabagabin inaan tababarkaas wuxuu ka koobnaa in carabku iyo dhufto
saraakiishu waxay u joogeen tababar ku saabsanaa hoggaaminta iyo maamulka taliyaha. waxaan filayaa waxaa laynu tusay amba laynu baray sidaa loo hoggaaminayo, sidaa markaad taliya tahay loo maamulayo, inaad markaad noqotiin inta kalena aad bari doontiin, inaguna ku dhaqmi doontiin. dhalinyarta tababarka la siiyey loo fidiyey wuxuu ahaa sidii looga hortagi lahaa rabshadaha, si looga hortagi lahaa argagixisada, si loo xoojin lahaa nabad sugidda waddaniga. waxaan filay iyadana inaad ku canfali doontiin oo insha Allah kuwii mararkeena noqon doontiin. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka Djibouti waxaan meeshan ka helay khibrad aan caadi ahayn, tababar aan caadi ahayn oo inoo fidisay kaarbiyeeriga Talyaaniga oo ay dalkeeda lagu soo dhaweysay dawladda Djibouti. taliyaha ciidanka booliiskana uu aad iyo aad ugu hambaliyeysan yahay ama ugu mudan yahay sharafta ugu weyn oo meeshan aan ka gaaray oo asaga mahad ka gaarto guultii wixii halka aan ka barnayna dalkayga kula noqonayna hadii Ilaahay idmo oo ummadda Soomaaliyeed baan uga faa'iideynayna. xageed ka timid adigu? waxaan ka imid Muqdisho. magaalada Muqdisho. maxaad ku kordhinaysaa markaad noqoto? waxaan ku kordhinaynaa waxyaabihii halkaan aan ku baray oo aad iyo aad u muhiim xagga baarista, xagga ka hortagga dambiyada, xagga ka hortagga qaraxyada, ka hortagga sida taliyuhu saldhigu u shaqeeyo. waxyaabo fara badan baan ka faa'iideysanay sida miinada meelaha la dhigo, waxaan caadi ahayn baan ka faa'iideysanay. waa mahadsantahay. salaatu ala rasuulillah. magacayga waa aan laba xidigle Axmed Cabdullaahi Baashane. alxamdulilah meesha maanta imaanayna iyo maanta wax badan ayaan iska bedelay. haddii noqon lahayd dhinaca baarista, haddii noqon lahayd ammaanka sida loo sugo, ka hortagga dembiyada abaabulan, iyo sida aan ula xiriirayno haddii noqdaan saraakiisha nala tababarata oo gobollada jooga. sababtoo dembiiluhu Muqdisho bis ma joogo, gobolka suu joogaa. waxaa laga yaabaa inuu gobolka Bay ama gobollada Jubbaland inuu u joogo nin caadi ah, Muqdishona uu falal ka wado. waxaan rajayn doonaa inaan wada xiriiri doono saraakiisha nala tababaratay ee gobollada aadays. dembiilaha Muqdisho dembi ka gala ee Jubbaland jooga soo qabanaynaa, kan Muqdisho jooga Jubbaland dhibkoodana waa la qabanaa. marka waxaan rajaynaynaa tababarka inuu tababaradii badan wax badan ka duwan yahay. waxaa la arki doonaa ammaanka suu isku bedeli doono. saraakiisha waa ayaga oolba u dhaartay dalka, haddana khaasatan hadda ay diyaar u yihiin ayadoo ammaanku aad u xun yahay inay sugaan amniga magaalada Muqdisho iyo gobolladaba. dhinaca tababarka la idinsiinayay waddankan waxa laga hadlaa afka Faransiiska. caqabad ma ahayd luqadda lagu hadlaa? waxaan noo joogay dad ay ka yimid turjumaano ka yimid dhinaca booliiska Soomaaliyeed oo taliya ciidanka noo soo xulay, sida Sadiiqna la yiraahdo oo saraakiisha booliiska ah. ninkaas ayaa naga turjumayay Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Soomaaliga laftigiisa ayaa laba luqad si kala maay maxaa tiri labadaba u si kala turjumayay maadaama ay saraakiisha ay ka kala yimaadeen maay maxaa tiri maydin uu fasirayay maxaa tiri uu fasirayay Talyaaniga uu fasirayay English uu fasirayay. waa saraakiisha Soomaaliya oo dhinaca booliiska. ninkaas ayaa si fiican u qayb qaatay turjumaanta cashiradii, ayagoo wuxuuna siinay dabcan ayagoo cajalada ah, ayadoo muuqaal iyo ayadoo practical la suubinayo. waxaad dareemi kartaa intaas. ma ku tala jirtaan idinku wixii aad barateen inaanay ku koobnaan in adigu ku shaqo tagtee aad ciidanka kale u gudbisaan? horta waxaan anaga aan barna wax aan hore u naqaano waaye, waa un nagula kackiciyey iyo wixii ayaan noo sii aqrimaanay. annaga saraakiisha Soomaaliya nahay, aqoontii waa leenahay. aqoontii oo lagu daray aqoontii kaarbineeriga Soomaaliya iyo Talyaaniga, qaabkii u wada shaqayn karaan, qaabka shaqada u socoto intiiba waa isleeyihiin. shacabkana qaabka maadaama askarna la socotay ilaa 200 ayay ahayd casharadaas la siinay. annaga waxay ahayd waa nin weyn oo wax ku jira la barayo, ma ahan wax la baran laakiin waxa nagu jira in la barayo inaan dib ula soo baxno. aad baad maadsantahay.